السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي سود وذومة الصوماليات مقعي وعاشا مرة دوان سكين برايا ما توحل ربا إن نحل قضبة يرو مهمة إن اللي وذاقو ألقى قضبة كسابسن عرورتا كسابسن عرورتا سبب توقو سابسية waxay tahay dumar badan oo wax jiraan caruurta korsadaan waalidkii dhaleelay joogin isku daya maadaama ninka kala tageen inay ilmaha ka fogeeyaan ninkii dhalay laakiin mustaqbalka aan iyaga u wanaagsanayn sababtoo ay tahay hadda doonayso mindsetka ilmahaaga iyo maskaxdiisu inay korto ha fiirinin adiga dhibaatada ninka kala gaadhay waxaad fiirisaa mustaqbalka soo socda iyo nolosha ifaysa iyo hadafka aad ujeedada ka leedahay laakiin haddii maaragtay ku muuqato darawalkan waa kala tagteen marka haddaad ilmihiisa daba wado waxay noqonaysaa tusaale ahaan oo kale inaad rabto haddii aad hooyo caqli la tahay ujeedadu maaha inaad rabto laakiin ujeedadu waxay tahay in adigu aad ilmahaaga farxadiisa iyo wanaagiisa ka taliso hadduu ka ordayo iyo hadduu u imanayo iyo hadduu sii ordayaba adiga dani kuguma jirto adiga kaliya dani waxay kugu jirtaa adiga iyo ninka wixii niga dhaxeeyay inaad stop garayso inaad dareentad ogaato nolosha wajahdo sida nolosha uga bixi lahayd ilmahaagana sida maskaxdiisa ugu dhisi lahayd marka waxaan arkayay gabadh clip soo duubtay oo ay tamayso oo maaragtay ninka ilmaha dhalay wax ima siiyo walaashay qurxay horta waxaan kuu sheegayaa farahaasi ma sina ragga Soomaaliyeedna isku mid maaha dadkuna isku dareen maaha waxa jirta aabayaal wanaagsan oo raba ubadkooda inay wax taraan oo hooyadu ka fogeynaysa ilmihiisa oo la ninka ma arki karo oo wixii iyada uu ka jaray iyaduna kaga aarsanaysa ilmaha waxa jira aabayaal xun oo aan ilmahooda ogeyn oo marka nolosha iyo marxaladda ay ku jiraan ku faraxsan oo aan ubadkay dhaleen ogeyn marka kale anu labadaba waan arkay dee qof kale caruur haysato qurbo joogtana waan ahay laakiin maskaxdaydu marba waxay ii sheegtaa sidii ugu wanaagsanay tallaabadii aanu qaadi lahaa in ilmahayguna aanu damage gaari lahayn oo aanu dhibaato la kulmi lahayn aniga laftayduna ay maskaxdaydu u dhismi lahayd marka muhiimaddu waxa weeye inaan mar walba focus ka saarno farxadda ilmahaaga iyo sidii aad u korin lahayd aanad ku mashquulin ninkii dhalay oo ma aragtay hadallada qaar xitaa ilmaha marka uu kula joogo kala aanad isticmaalin nin xun baa dhalay nin caynkana dhalay nin sidana dhalay macnaha waxan waa adduunyo ilmahani berri buu weynaan doonaa berri buu ku anfici doonaa mustaqbal ahaan laga yaabaa xitaa qofka maanta ilmihiisa ka fogaanaya aan caawinin aan wax taraynin isgarab taagaynin inuu berri isaga muto oo berri isaga u baahdo oo caawiyo waa wax dhici kara marka adigu si berri aanay dhibaatadani kuugu soo noqon oo markuu cunugaagii uu ku gaadho 12 jir ama 20 jir jaamacad ku bilaabo adiga aan hadhow dib dhibaatada kuugu soo noqon oo ilmahaagu su'aalaha ku weydiin way aabahay ama ila xiriirsiin waday ama hooyada ila xiriirsiin waday ama waalidka ila xiriirsiin waday حاول كتحدرتو انت بدن Soomaaliya markan joogno oo kale waxa jirta caruur ayoyooyinku ama ehelku korsadaan oo waalidka dhalay laga fogeeyo hadhow ilmahaasi cadaawad wuxuu u qaadaa cidii korsatay jacayl marna uma hayo markii qax laga yaabo khalad in laga fahansiiyay waalidkii dhalay isagoo aan dhibaato geysan marka maskaxda ilmaha iyo mindsetka ilmaha aad buu nolosha iyo mustaqbalkeena muhiim ugu yahay goob kasta iyo meel kasta ku sugan tahayba ilmuhu waa farxadaada iyo noloshaada qofka hadaanu ilmo haysan farxadiisu inta badan maaragtay mid shaqaynaysa maaha inkastoo iimaanka iyo qalbiga wanaagsan ilaahay qof walba uu siiyay aabba xun inaad adigu ku dayata maaha oo maaragtay diimaanta ilmihii aabihii waayo hadduu hooyadiina waayo waa dhibaato marka waxaad isku daydaa inaad adigu mas'uuliyadda ka soo bixi karto aabba noqon karto hooyo noqon karto dhaxda xidhan karto marka aad baan dhamaantiin intaasan saakan la wadaagayaa aad baan salaamayaa salaamada